dhegaystayaal meel kastaba dunida ha ka joogeene ragga iyo haweenka qaybaha suugaanta wax ku curiya waxay adeegsadaan habab kala duwan oo ay fariimahooda ugu gudbiyaan dadka akhrisanaya ama dhegaysanaya amaba daawanaya macnaheedu wuxuu yahay suugaanyahanada iyo fanaaniintu isku si wax uma curiyaan marka ay maanse tirinayaan marka ay riwaayad alifayaan markay sheeko ama hees qorayaan siday u badan tahay midkood waliba wuxuu hawlihiisa ku fuliyaa hab ama looga horreeyey oo intuu door bida uu raaco ama uu isaguba soo saaray marka dambana lagu barto loogana daydo waxaa haddaba jira hab suugaaneed maansayahanada soomaalida qaarkood ay marar badan tixahooda ku curiyaan kaasoo habka sarbeebta loo yaqaan maxay kolka sarbeebi tahay waa hadal ama tix ah ama tiraabfaneed ah oo sida loo yidhi si aan ahayn loola jeedo waa duurxulo waa hadal ujeeddo qarsoon leh hadal daboolan oo si la wada garan karo aan loo dhihin adiga oo dhab ahaan arrin ama qof u dan leh markii aad ka hadashid qof ama arrin kale ayaa lagu odhan karaa hebel wuu sarbeebtay ama si sarbeeban ayuu hadalka u yidhi ama waa tix sarbeeban oo aan si fudud loo furfuri karin waa sarbeebo waa ujeeddo aad shareerayso oo aad rabto dadka qaarka aad ula jeedaa inay gartaan inta kalena ay ka daahnaato waa hadal dhowr sababood middood ku yimaada sida sariigta baqdinta wax tusaalaynta iyo noocyada kalakaanka ah ee halxiraalaha nafsi lama daraagsado isagoo dibadaha ayaa leh dukaan lagama iibsado sidii shay markaa dihane waa laga dambeeyaa intaanu daaqad kaa furan si dhashoo waxarteedii reer dhancaana ku deeqday bal risaale ka sheeg inay dunidu meerto tahay oo jabka iyo guuldarradu aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale u qorayn maanta qofka ladani berri iskuma hubi karo haatan kii laalaadana ma aha inaynu u malayno sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraaro joogaa uu kan tabaaraysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadna moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaanno hore ka faraxashay haddana lama waayo dadka qaar iska dhaga tira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan gabyaagii weynaa ee dhowaanta xijaabtay cabdulqaadir xirsi siyaad oo yomyam ku magac dheeraa ayaanu beri isla soo qaadanay murtida heelooyinka qaraamiga ah ka buuxda markaasbuu wuxuu tusaale iigu soo qaaday nin ay saaxiib ahaayeen oo sulub cumar la odhan jiray kana mid ahaa hal abuuradii midhaha heelooyinka curin jiray siduu yomyam ii sheegay wuxuu sulub ahaa nin jacayl feentay oo harag iyo hilibba ka idleeyey wuxuu u ekaa buu yidhi geed qallalay
dadkii horay u yaqiina waxay ii sheegeen inaanu weligii guursan waxaa sidaa u engejiyeyna uu yahay jacayl soo maray xilligii uu dhallinyarada ahaa. yemim wuxuu igu yidhi waxaan sheekadaasna dhab u rumaystay markaan isu eegay ninka muuqaalkiisa iyo erayadiisii uu ku alaladay ee caanka noqday. anigoo sugayla ayaan weydiiyey erayadaasi kuwii ay ahaayeen. dabadeedna isaga oo ka yaaban inaanan aqoon ayuu yidhi ma waxaanad maqal had mooyee habaarba looma dhintee haaduna subaxdii hortay ma kacdee aniyo hilbahaygii kale hoyanne labaysu hilowday hayga hadhee hamoy beene sawtan la i helay. dhegaystayaal codkaas miyirka qaadka leh waxaa allaha u naxariistay 1997 xamar lagaga qabtay xaliimo khaliif magool oo ka mid ahayd fanaaniintii ragga iyo dumarkaba lahayd ee heellada iyo guud ahaanba fankeeda casriga ah soomaalida jeclaysiisay. adduunyada rakaabsuulka shiya noqotay saadaasha ee uu salaankii ka jabay xarigii loo soo hay
socodkii laga weeciyo samihii loo uumay sul dhabaalaha qarsoon la isu saynsaabay weysha sidigtaa dibigu uu samrahayaa siday noqon sideedlaan sagaalaha haddii saamiga u ridaya raanidan sabooshe lixduhu sabeynayo baashahan sukaha laga degay iyo iyaga sare jooga afarahan santaarada la helay tobanna soo jeeda siday noqon manahan ilowshaha dhiciya salowga meeraya sanqashadan ujeedada hadiyo bohoshan saynsaaban ishan saxarka laga bixin kareen laga samaynaynin salaan aan biyo ahayn gacmahan la isa saaraayo qaslad labasadla ah kii rabaya soorka laga taagay siday noqon siqla orodka geediga wadada siigu badan leeyda sawaxanka iyo qaylada xaqlaha sooska dumin waayay taabliida haamaha la raray u keenanka sagaalo kanaafladka tagay saxalka guuraaya siyaasadda ninkii qoril uu saaran guradiisa siday noqon mahmaha baasadan hore karbeebteedu ahayd nin samraasadkii hela haddaan mood ka seerayn sababi waa halkeedii maraan xalay tasalalo surradii iyo casiidiyo isu eegay suuraha sagal bay isku wada xidhay ta iyagoo ku qoran yahay mar hadday sidaa tahay xidigaasi waa sax dayaxu waa sagaalaad salka dhigay galkiisii ururku saxalkii kala reeb soo carar afyuubkii في عقر مريقي كبرار سد حبود ساداش واقع صحاد واروب هي سبب برواقات وينو ساد اللي يقول إذا سهايكون كسح واي توصل يكون كسر يودو وجد بوارو بصفاد الملوشي ودي سهايكون كسح واي توصل يكون كسر يودو وجد بوارو بصفاد الملوشي إلا الذي سؤالهم كبسيبو آخرهم وكل السعداء مسامح يوجر سور دوابون نفسك تدان جاني سلام نبت قليا لخو وضعو ينفوس داي سلام نبت قليا لخو صعب ضفو وضعو ينفوس داي مصيري قدرك مسيرك وقالوا مصيري قدرك مسيرك وقالوا مصيري قدرك مسيرك وقالوا مصيري قدرك مسيرك وقالوا Thank you.
hay sirtaydii ogaato laydhaay sidatee saalhayga moodine qalbigaad dhex sudantood ka siraada tahay inaan kuu siloonahay sirtaydii ogaatay laydhaay sidatee saalhayga moodine qalbigaad dhex sudantood ka siraada tahay qobaday qalano wadnahay sarano dhiga saynaye wadna sarakaca sombobaday qalano dhiga saynaye qobaday qalano wadnahay sarano dhiga saynaye galan nabadgelya laho sacabada kuwado yankuu sidaaye nabadgelya laho sacabada kuwado yankuu sidaaye ama sayri qadarka ma sidaa ku qaado 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 waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo wayga su'aalay dar allee masaxda waxay adiga ku daran ninka ay dambaysee dalkuni deeqsii ka duramanaya isagoon dareen qabin qofkii laydinkala dilo duufaanku qaadi sahal gabayshuy ayaan dadku kula tegin duufaanku qaadi sahal gabayshuy ayaan dadku kula tegin Mother,
waa gabayga ay Soomaalidu ka qabsatay saddexdan meelis ee caanka noqday istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaan ee tiska waxa la qaadaa markay tiirisaa bidixay hadday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseen
nafsi lama daraagsado isagoo dibadaha yaale dukaan lagama iibsado sidii shay markaa dihane waa laga dambeeyaa intaanu daaqad kaa furan dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay ina raqow dar alleema ku daawan lahayd dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horeysee nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su'aalay dar alleema saxda qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dejin weyda kuuna diirnixi waaya dadweynoo wayga su'aala dar alleema saxba ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo wayga su'aalay dar alleema saxda dabar lagu cabiyo dooqa isku kihin elbeenoho dulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dooqa isku kihin waa hadal daweyn saliyo digni ayaha dambana darsi kaaga dhigan هذا الدوي صلي الدني يا هذا بنا بسكا قديم يدي بالسوق ابوها ندالينو هذا اليوك دينين يدي بالسوق ابوها ندالينو هذا اليوك دينين نيا كادبن ومدير نحدين نيا كادبن ومدير نحدين يدي بالسوق ابوها ندالينو هذا اليوك دينين يدي بالسوق ابوها ندالينو هذا اليوك دينين نيا كادبن
lama qasbo ragga laguma dayo wuxuu diidayay damac dheerida dadka lama qasbo ragga laguma dayo wuxuu diidayay damac dheerida wadardaarano dambay ku tahay shaki hadaya umatuulaha wadardaarano dambay ku tahay shaki hadaya umatuulaha edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin niya kaadifan umadirnade niya kaadifan umadirnade edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin niya kaadifan umadirnade niya kaadifan